Somalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami Puntland in badan عداده furay hananka isbiyada horseeday cadaahi milada lahayo haatan baad dhabaysay ambalyaan ku nidhiye hogaami Puntland in badan Somalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami Puntland in badan taniyo in badan hogaami Puntland عداده furay hananka isbiyada horseeday cadaahi milada lahayo haatan baad dhabaysay ambalyaan ku nidhiye hogaami Puntland in badan Somalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami Puntland in badan taniyo in badan hogaami Puntland عداه لانو هليا تنيو هرمودا عداه هوركرو هالدورا تنيو هرسيدا امبليان كونيديه hogaami Puntland in badan Somalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami Puntland in badan عداده furay hananka isbiyada horseeday cadaahi milada lahayo haatan baad dhabaysay ambalyaan ku nidhiye hogaami Puntland in badan Somalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami Puntland in badan taniyo in badan hogaami Puntland marka hore waxaan si gaar ah u salaamayaa wasiir Khadija Xildhibaan Mustafa Duxulow iyo wasiir Maareeye oo runtii kolleegayga ahaa xildhibaanaha islahay xafladana si gaar u abaabulay iyo asxaabta kale ay matalayaan dhammaantood waxaan kaloo si gaar u salaamayaa gudoomiyaha degmada Howlaag oo degmadayga ah sidoo kale asxaabtii reer Howlaag يا أصحابي هراء يقول هذا الجو لوضع رنتي عاوة فرحة إذا لبسوا كوبكرو وأن كم هالعلنا يا أنتي سوق مقابسي أنتي سوق عن الثبة حفلة قيمة بلن ومقالة لي مربات أنا بقى مسؤولة وستيت مسؤول كأهلي مسؤولوين ثانية مركي عن ميت وقرأ في سودري لامانته waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada runtii sida la sheegay xasuus iyo waayo iyo farxad bayna gelisay waan jeclaa dad badan oo jiilkayga maanta halkaas ku aragnay iyo dadkii hore waa ku faraxsanahay inaan wada qaadanno habeenkan siyaasadda ka fogay laakiin ma hadda xoogaa lagu celiyo horta ma waxaan rabaa halka inaan ka caddeeyo anoo saaxiibaday ku hadlay afkooda heshiiska dhacay annagoo keliya maan heshiinay heshiiska bulshada Soomaaliyeed loo qaano dadkoo dhan inay heshiiyaan oo la iscafiyo kursiga uu mahad la soo carara waa soo ceshan kartaa waa kudeelahay waxaan ballan qaadayaa hadduu soo noqdo inuu soo ku soo hadduu galmudug yaalana waa ka daba tegayaa inaan kala shaqeeyaan halka sheegay صاحب قالي أو مقدر عصور شقيني صاحب هذا كله هو هاللي واللي بعنا هذا أنا قررنا إن اللي بعنا وحدونا إن أتقرب نجح زان ما هني ترون تروي نقبل المكان طبعا الشيء كان مقتصر وقاري وكسر بلوني سمرات أو مجيء ورا إكس لو سمرات هذول اللي قبل اللي أفكر الناس كبرتين تاس
runtii wuxuu ahaa heshiis loogu danaynayo dalka iyo dadka. waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muddadii dheereed oo shirkaas u fadhiyey. waayadan dambe waa dhici kartaa meediya aanan warhayn baa mararka qaarkood wax badan sheega. runtii intii la joogay dood fiican iyo wada xaajood lagu salaynayo maxaa dalka marxaladdan dan ugu jirta ayay inta badan ku socday, laakiin marna xiniftan siyaasadeed ma jirin. kala aragtiduwanaantuna waa midda wakhtigaas keentay in marka dambe meel la isdhihi karo iyadoo laga fiirinayo midnimada dalka, xasiloonidiisa iyo qabsoomidda doorasho waktigaysan oo wakhtigeedii ah. intaasaa saldhig u ahayd. waana filayaa intiinaba inaad u arkayseen inuu tahay in macquul ah oo cid kastoo meeshaas joogto ay sidaa u arki lahayd. marka waxaan rajaynayaa sidaa loo sheegay heshiiskan cidna looguma darnaan, cidna looguma roonaan. wuxuu ahaa dalka danta iyo maslaxadiisa. haddii cid ay leedahay abaalkiisa iyo magaciisana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ahaa cidda gartay in sidaas ay wax ku dhacaan, iyo saaxiibadii kale ee ka soo qayb galay ee maamulada matalayay iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo isaguna goobjooga. waxaan rabaa siyaasadda uu ku dheeraaday inaan ku dheeraado marraba intaasaan rabaa inaan ku xiro keliya inaan intaas sheego. dabcan inaan iscafinay baan anoo saaxiibada qiraya, marka inaad ansixisaan waan rajaynayaa ilaahay oo dhagaxtuurka iska daysaan insha Allah. aadaan ugu faraxsanahay runtii in xafladdan qabsoonto, in saaxiibadii reer Wadaag ay halka joogaan, in maanta runtii karaamadan iyo sharaftan aan halka ku helnay waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad mid ah meel walba wada joogo. dabcan mas-uuliyad markaa haysid siyaasaddu waayadan dambe waa iska xarajiidkeeda badan yaho de warkeedu waa gaar. marka annaga xamar markaan joogi jiray maalintiina waa la feertami jiray, habeenkiina waa la wada caweyni jiray. marka haddii maalintii xataa dhagax laysku tuuro habeenkii waa la wada joogaa, laba kala maqnaa, dad ehelaa leeyahay. runtiina dalka iyo marxaladdu maraya sababahaas keenaya oo ah dib u dhis baa lagu jiraa. aragti kala duwanaantu waa shay dabiici, marna xumaan ma jirto. waxaan jeclahay inuuna hadalka iga xumaan oo aan siyaasad waayadan dambe siyaasaddan ka sheekayn jiro ila fogaanin, inaan u mahadnaqo dhammaan intii halka ka qayb qaadatay. ugu horreeya fanaaniinta qaranka, zakariya, kooxdii falka loorka ahayd ee halka caawa runtii wacdaraha ka dhigay, iyo miidiyaha iyo inta kale oo khaasatan milkiilaha hoteelka iyo dadkii sidan cashadan sharafta badan iyo wakhtigan wanaagsan iyo qiimaha la isku dubriday. dhammaantiin waxaan jeclaa inaan iga mahad celiyo. waayeyn xasuusiyeenoo haddee dhulkii aan ku baashaali jirna wey. marka insha Allah waxaan rajaynayaa muqdisho quruxda ay lahayd wuxuu ahaa amni. quruxdu daaraha iyo dhismuhu macno badan ma sameeyo. magaalo runtii labada habeennimo iyo saddexda habeennimo meeshii la rabo la iska aaminsan. annagoo Wadaag degan baan saddexda habeennimo Cabdicasiis ka tegi jiray iyo labada habeennimo. wax dhibaato ah iyo waxaad ka baqaysay ma jiro. hadda waxa ugu weyn oo haysto waa arrinta amniga. taasna waxaan rajaynayaa ilaahayna waa u baryeennaa. dowladda iyo dadkeeduna waxaa la rabaa insha Allah dhammaantiin annagu isirno inaan amniga uun xoogga saarno. haddii ammaan la helo waxyaabaha kaleetoo dhan iyagaa iska imaanaya. marka insha Allah muqdishona waxaan u rajaynaynaa guul iyo horumar. guddoomiyaha iyo maamulkiisana waxaan u rajaynaynaa waajibaadkooda inay gutaan. degmada Wadaag si gaara waxaan u rajaynayaa xogteeda waan hayaa, isbeddel inuu ka jiro waa la socdaa. caqabadaha gaarka u haystana si gaara inaan uga sheekaysanaa rabnaa. si gaara inaan waxaan rabaa Wadaag wixii karaarkayga aan uga qabto. maxaa yeele waa meesha ku soo barbaaray. aad baad u mahadsantihiin. ma rabo inaan hadalka xumeeyo oo wax badan ku dheero, laakiin mar labaad maamaqadiinta si gaara mar labaad ugu mahadsantahay oo runtii Wadaagkii dhabta ahayd ah
qofaan ceel galmudug iyo ceel ibraahim iyaan aqoonin rag halka ka sheekeynaya madiinayaan baqlaayo marka annaga xamar joogi jirno dadka madiina jooga xamardayaan dhihi jirnay dadkii asalka ee beledka maaha dadkii gadaal ka soo cararayaan marka madiina iyo hurwaa iyo annagu ku tirsan jirin laakiin magaalooyinkii das asalka ahaa cadagaawo halkii muuqda iyo gurey iyo cismaan magaciisa kale ma ku daraan waa cismaan senator cismaan ya cismaan biidiyo سيد يا بشير قومي يا هؤلاء تقبض عليك الرئيسي ويرتا وركانا وما سنتين وحرجينا يا فرحنا صاير لك يا بانوان كنت فرحسن هاي لبصنوا عليسي وبضحنونا عاول يجروا المركز ماذا سلامات يقول لك ما سهل ما ما لا شو نحاي ما مركا حساب ترى رجع رجال كسيال مركا هذا ما سنتين وكمان علينا يا وحنا رجينا يا كوع وبري وغلقابياش هلكا يغليجو يتيم بوزيردا قالوا إنه معزومين إن شاء الله حلو وأخي أنا وحنا رواتيجا هنا نقوم هالنقو الدنيا وكهوين كبطولة ورنتي دور جانا نقصه بوقتي gobolladeedii gaarka ah iyo inta kale aan ilaaway oo dhalinyarada iyo haweenka iyo runtii bultuulasha gaballe waxa way dalka taariikh badan ay ku leedahay muddo dheer bay soo halgamaysay marka fanaaniinta oo dhan ay kasoo tagay hanuuniye reerolodaalku ka mid ahayo hadda waa naga tegey aad baad u mahadsantihiin waa idin salaamayaa dhammaantiin